بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. قيادة الشرفت له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كانت صالحة نولشة وكلا سؤالي سومالي كيبل. وحان ما أنت كريها بينا مسؤولية دا لبدا الدرف كده حيسا وكسابسن جوريجا جور كينا لما أنا هاس محاب مسؤولية أو كده حيسا مسؤولية دي مدد قاعدة كده حيسا مسوا مسؤولية كوضع حيسا وهو مركي رنهان لقن كيديمه هو إصلاح جلال إنه طبعا دين الإسلام كا جزيرة العربية كسو دحدكتي طبعا شك ملها قيب كمية لقن كي عربته ولا صعد دينته إن كمية أنا مركي لسيقاته يضع لقن كي دين تسكت حجرته أي مركي قار كود نسوق عنا لكن وحان ربنا إنان فيرينو دينتو السلامة قدستي جوريجا طبعا سيبا الله صورسنا جوركو سيدان موضع هين جور صحة وإلان نبي إبراهيم سوس عدي وأنبياء إلهي باجري جوركا إنه ويتوصنيد إنما توصنين بين آدم كدنا طبعا ويسكور سدا دين هالسكور جورسدا دقن هالسكور جورسدا جوركو طبعا وواح فطري إسكاء لكن waxaan ka hadlaynaa khiyaarka la isku guursanayo ma hal daraf uu ka socdaa mise laba daraf ayuu ka socdaa mas'uuliyadda dumarka iyo raggu maxaa u dhaxeeya oo calaaqa ah guurka haddii dumarku aysan raalli ka ahayn ma socon karaa mise ma soconayo waxa way run ahaan waa sharikad la asaasayo shuruudeeda asaasiga ayaan rabnaa inaan mar kale insha Allah aan isu taagno دقائق أنا هيسنو مركلو يمادو حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحب لو صار الدمركا تنكح النساء لأربع أفر بالو جورسدا أيوة أفر سببات برهق الدمرك أجورسدا بودي عليه الصلاة والسلام وحلو جورسدا بودي لمالها جبر حوله رجعاركي الدمرك وحيكون دورنا يان دول إسكالة لو حول الأياجرة وحالو جورسدا أو كله قبل ما شاء الله إلهي وقروح سيء نوالو جورسدا يعني قروح ده نوالو جورسدا مير في عم بكسو جدو عائلة شرف له أساس أو كله أو روح اسكت توصل أو ماشو كيمد هي واحد صورنا نوالو جورسدا حالو جورسدا أو كله روح متدينة أو أخلاق الدين يكو عم بحيدنا عاصنا ولو جورسدا نبي مركب وحوري فضفر بذات الدين التربة جدا كبوري يعني واحد كقول ليس تابول أو تقول ستا قبل الدين له سدا سعد كل يباني رنهان مركب ساس لو فيريو هدان سؤال يسوي دينه قبل مركب جورسنا يسمى مركبين طبعا واحد رجع لو شيء يا مسؤولية جارة أو رجع سارن أياجرة أو قابكو إسلامكو وقلت لي waxaa la fiirinayaa sidee buu gurigani uu ku dhaqmi karaa sadaradeed ba sharikad ka soo asaasmaysa mudiir bay leedahay madax bay leedahay mudiirka sharikada ayuu diinteenu waxay ka dhigtay inuu yahay ninka ayaa laga dhigay sadaradeed markii gabadh iyo wiil isguursanayaan al asal ayaa waxa weeye mas'uuliyada bilowgeedaba ayaa waxa la leeyahay hebel wuxuu doonay hebla ayuu doonay inuu guursado markaasuu reerkoodii u imaanaya labadii reer baa isu imaanaya waa marka la mas'uuliyadii waay mas'uuliyada marka maadaama bilowga ninka ay ka imaanayso ugu dambaystana meesha ay ku soo dhamaanayso haddii gurigaas uu dhismo mas'uuliyada dumarkee ugu weyn waa maxay mas'uuliyada dumarkee ugu weyn waxa weeye inay caruurtaas inay koriso maxaa jira wax bina aadam ka shaqeeyo waxa ugu muhiimsan oo ugu dhib badan oo ugu culays badan ilma la koriyo way ilmaha la korin waxa munaasabo an nin inuu koriyo mise inuu dumar koriyo maya hooyo ayaa asal u ah sadaradeed ayaa ragga waxa la leeyahay markaad gabadh guursanaysaan idinku caruuna ma korisaan qaabka loo koriyana ma taqaaniin gurin amnigiisa ma joogtaan waa inaad doorataan ruux munaasiba ayaa la leeyahay dhinaca kale gabadhii marka sidaas oo kale iyadana
ragga waxa loo guursado intuu iyadana way soo galaysaa fiiri waxa loo guursadaa nin baa xoolo leh nin qurux badan oo caafimaad qaba wanaagsan gabadhu ninkaasna way ku guursataa waxay ragga ku guursanaysaa qoys sharaf leh oo qiimo ka soo jeeda waxay ku guursanaysaa inuu diin leeyahay marka fiiri qiyamku way isleeyihiin ragga ha lagu sheego oo nabigu calayhi salaatu wasalaam inta u badan rag buu la hadli jiray oo jihaadkii baa lagu jiraa masjidka waxaa loo badan yahay rag baa u badan shirarka iyo kolka mashaar rag baa u badan waxa marka hadalka loo jeedin baa ragga ah laakiin hadalka ragga loo jeedin dumarkuna way ku jiraan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam afarta shay uu sheegay afartaana dumarku ragga way u guursadaan waa saas weey macnaheedu saadaradeed wiil iyo gabadh markay isguursanayaan waxaa la rabaa mid waliba inuu ruux mutadayina oo akhlaaq leh oo sharaf leh inuu guursado ayaa muhiim ah kow khiyaarka mas'alada labaad waxa weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ruuxa aad guursanaysaan odartaan inaad ilmo isu dhashaan ha laga fiirsado fiirsigaasna ragga iyo dumarkaba waa laga rabaayo gabadh haddii nin xun u yimaado ma in loo guuriyo maaha saa daraadeed ayaa nabigu wuxuu yidhi hadduu idiin yimaado man tardawna diinahu wa khuluqahu dhahay yani waa nin sharaf leh sidii marka gabadha fadfi bidaati diini loo yidhi ayaa ninkiina waxaa markuu gabadhii soo doona waxaa la yidhi hadduu idiin yimaado nin sharaf leh oo ehludiina oo akhlaaq badan oo gabadha dhaqi kara ama isdhaqan karaan hadduu idiin yimaado loo guuriyo baa la marka dhinacaana way ka siman yihiin qodobka saddexaad ay ka siman yihiin waxa weeye waa mas'uuliyadda ee labadooda u dhaxaysa الرجل وحاوي وراء لبيته لأهل بيته مسؤول كيهاي من حديث كدير كبدن والنبي يقول روح والبوا مسؤول إلى لجسوا قارن نك الدولة ده مدحك أو هيرك لصومري أو قبل لصومري أو نك لصومري والمرأة راعية لبيتها ويمرك سمعت المركة نك راعي لبيتي ويه والمرأة راعية لبيتها ويه سبب تحاوي لبدو مسؤولية قوة عيسى لكن labadooda iyaga ka heshiinaya mas'uuliyada qaabka loo gudanayo iyaga ka heshiinaya heshiiska marka diintu ma si dhaxgalayso yaani mesela gabadhu ma shaqeynaysa ama sama shaqeynayso ma diintu ma dhaxgalayso abadan caruurta si loo korinayo gabadha asal ah laakiin duruuf haday timaado oo gabadhu ku qasbanaato inay shaqeyso way shaqeynaysaa laakiin waa in laga heshiiyo ilmahaasa ugu qaalisa waxaan haysanay si loo koray in laga heshiiyo la rabaa guriga marka in mas'uul laga yahay labadiiba saas ayuu u dhacayaa haddii marka mas'uuliyadaasi cid waliba inta kaga soo haagta ina si sax u qaadin gurigu burburaya gabdha badan markay shaqo aadeen caruurtoodii baa ka dhuntay caruurtii baa inxiraaftay caruurtii lama tarbeynin markaas iyadoo da'ayay balaayan dhalay waa run balaayan dhashay laakiin waa dhashay laakiin mas'uuliyadii laga rabay adiguna ma aadan gudanin in marka la qaybsado ninkuna uu saacad soo shaqeeyo gabadhuna ay ilmaha koriso iyadoo cilmi leh oo shahaado haysato oo jaamacad ka baxday marka qaarkood daruuro waaye haddii marka la helo caruurta wax korinaya oo buuxin kara ilmaha waajibka u baahan yihiin waa mas'uuliyad ninka iyo xaaskiisa lamaanaha laga rabo mas'uuliyadaas waaye sidaa daraadeed waa mas'uuliyad ka wada dhaxaysa marka loo yimaado qadiyada kale guurka la isku qasbo islaamku waa diiday إسلام كوادي ساد ردد أنت أسوأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيو ستوس أشياء ولا مركز جوال الجورينا أيو وإن إذا كذا لقاطه هدي ديدو مايا هدي نسوا جورستي هدي جوال واسكمد هدي تراني كان مرة ولا جد دينيا عندكم قسم كتمرها مركز الإسكور سلنا مركز الإسكور سهدي لشيء معينة حق الإسكور ما قبي كرو هداي gabadhu tiraan ninkan aniga niyaho ma heshiinayna ifur markii la soo maro qaraabada oo dhan oo la heshiisiyo oo lagu dadaalo oo saaso kale haday meesha ku dhamaat alxamdulillah laakiin haday gabadhu soo istaagto ugu dambaysta ninkan ma heshiinayno ninku wuxuu ku qasban yahay inuu furo isaguna markuu rabo gabadha uu furi karaa saadaraad dhinacaana way ka siman yihiin سادرادد هجانك ونكم مسؤول كيا أو طلاق جعنتي سلجليه محل لوجليه وسؤال وحجعنتي سلوجليه رجع يضمر كنقن كودا كالدوان ضمركو عاطفة ده أي حجله سادراد عاطفة حجله واحد مناسبتها المها يعني يدي أنت كرنا إسا
iyadoo ilma haysa iyadoo uur leh iyadoo ila xad dhageysanaysa sideed shaqo ayaa hal mar isku qaban kartaa gabadhu ninkuna hal shaqo kama badnaba tabartiisaaba intaasa habeenkoo dhan wuu iska hurdi iyaduna ma hurido sidaasa ilaahay xoogooda u kala badiyay xooggaasina wuxuu ku salaysan yahay bini aadamkan dhan inay koriso iyada ayaa korisay iyada ayaa caloosheeda iyo qalbigeeda iyo xijiraheeda iyo dhiigeeda ku soo korisay saadaradeed capacity ama xoog uusan ninku lahayn yaan laga raadinin gabadhuna xooggeeda ugu weyn haday meel kale la aado bulshada caalamka dhanna way ka go'an tahay dadka usrada ku ciyaaray oo diiday in la isguursadana waa dawlado badan baa hadda 50% yaraaday 100 sano 200 sano ka yar oo inay baaba'aan laga yaabayaa dawlado kalena way ku socdaan dadka caruurtoodii korin waayay oo inta laga heshiin waayay gabadhii iska shaqatay ninkii uu shaqo tagay loo dhiibaayo gabadh yar oo shaqaale ah oo dalka xoolaha la meel kale ka keensanayaan ayaa waxa la arkay intaasoo ilmo ah oo diintiiba haysanin oo dhaqankii haysanin qaarkoodna markay aabahoodii oo hooyada soo xanaaqeen hadda Filibiinta oo kale markay khaliijka oo kale markii runaan aan joogay aad baan u dareemi jiray intaasoo ilmood oo la dilay maxaa jira way xanaaqday ugu dambaysiina maartay iyo irbad taqriiban waxay ka gelisay maskaxda halkaas ku dhimanaya saadaradeed waxa way intaana heshiis baa lagu yahay aqdigan marka khayrukum nabi alayhi salatu wasalam wuxuu khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli budahay khayriyadana way isku la jiraan gabadhii ninkeeda ahsaan iyo wanaag u sameey weedana la khayra fiha wax ay macna ku fadhida malaha ninkii xaaska uu qabo wanaag u sameeyana la khayra fiha macna ku fadhiya malaha idan raggan iyo dumarku waa lamaane waa shaqaa'iq waa laba dhinac oo isu tagay oo la raba waajibka in la wada ilaaliyo saadaradeed mararka qaarkood maadaama ayna gabdhuhu diinta aad u baranin halkaas ayaa mararka qaarkood ay raggu si diinta ugu fasiraan aan munaasib ahayn way jirtaa taasi laakiin hadda diintiina waa la wada yaqaanaa waa la wada bartay waxa marka la rabaa dumarkuna ragga hoggaankiisa inay ogolaadaan baa rabaa oo inuu mudiira sharikada yaa mas'uulka ah ninba mas'uulka ah inta talaaq waxa loogu dhiibay caadifada dumarka way gabadhu markay xanaaqda la soo boodaysa ifur yaa gacanteeda aan la gelin waxa la rabaa marka sida quraanku u sheegay in qaraabada loo bandhigo oo tartiib loo dejiyo waa hawl alxamdulillah yaani aan hubo tobanaan caailadood inay soo martay waa huba oo gabadhu marka dambe ee xaalkeeda aad degeysatid way iska caadi way iska degaysaaba iyadoo xanaaqsanna ifur bay leedahay waa intaas waaye laakiin waa mas'uuliyad loo sameeyahay oo la raba dhamaanteena ka wada shaqeyno waxa run ahaan diintu sidaas ay marka cadaalad dumarkan ugu samaysay raggan ugu samaysay sida inaga wada amarka aan bulshadeena wada dhisno ragga Soomaaliduna dumarka ay yaraysanayaan marka qaarkood ha iska daayeen markay gabdhuhu dhashaana ha loo walqalo oo ha loo mashxarado oo ha lagu farxo sidaas ay diintuna sheegaysaa dhaqankuna saas ku fiican yahay meel kale insha Allah ka sheekay doonaa wixii markii aan Yurub iyo aad wixii nagu dhacay aad iyo aad ma santii wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh